jariimadii abad ugu weyneed ayaa ka dhacday wadanka Masar ama dilkii ugu xumaa dil iyo jariimo waa isla meeshii laakiin qof walba si uu fahmaa ayaa ka dhacday wadanka Masar wiil ayaa saaxiibkiisa dilay intuu dilay oo waliba hadana uu jarjaray soo wiilka saaxiibkiisa dilay magaciisa waxa la dhahaa Yusuf wiilka la dilay magaciisa waxa la dhahaa Ahmed kan dilka geystay waa 13 jir mid kala dilayna waa 12 jir soo labada wiil saaxiibo ahaayeen iskuul isla dhigtaan markasta isla caanbarooni isla ciyaaraan waa laba wiil oo saaxiibo ah oo familkoodana isku ogyihiin oo isku badan oo isla ciyaaro wax dagaal oo khilaaf ama barbalan ah oo ka dhex jirayna ma aysan jirin soo maxal dhahay Yusuf ayaa maalmaha kamid ah familkiisa oo ka maqan guriga ayuu wuxuu dhahay kaale imo xaafada maxal dhahay aan iskaga fiirsanayna TV PlayStation iyo waxna iska ciyaarayna wuu imaaday markuu imaaday iska baashaalay wiilkan oo waxaan ku dhahay qabar moog ah oo xitaa yaani haduu qofka col leeyahay uma tagaayo kulli ilmaha naftirkooda aqligooda way qabaan uma usan tagi lahayn hadii xitaa uu ka shakisan yahay baangad intuu soo qaatay Yusuf iyo saaxiibkiisa Ahmed qoorta jab kaga siiyay wax allaah wuxuu ku jarjari lahaa xitaa yaani mucjisada jirto uu sii diyaarsaday wax xitaa dagaal oo markaas xitaa khilaaf oo isku soo bood xitaa ma ahayn dilkan wuxuu ahaa dil uu Yusuf diyaariyay inuu saaxiibkiisa dilo baangadii uu diyaarsaday mishaar uu ku jarjaro wax kasta xitaa bacyaal qashin waxaan ku dhahay maxal dhahaye heer boorso xitaa meedkiis ku siiriday intuu jarjaray oo boorso meedka ku riday oo xitaa wuxuu dhahay qaar xitaa waa dhadhamiyay sida dhadhanka yaani waa fiirinay kulaha hilibka bini'aadanka suu u soo dhadhamaayo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wallahi masiibo oo aad iyo aad u weyn waaye oo wadan muslina ka dhacdo oo hadana ilmo yar yar oo inta la eg ay geystaan yaani wiil 13 sano jiro 12 sano iyo 13 sano kulli waa isku fac wax ay hadda ay kala weyn yihiin malahan soo yaani waxa la yaab leh ee dadka dhan hadda bulshada Masar dhan ay la yaaban yihiin sidoo dil noocan oo kaleeta ah wiil 13 jir uu u geysan karaa soo haddana familkiisa ay iska yihiin famil iska caadi oo maxal dhahay oo famil yaani oo mujrimiin aysan ahayn oo dad iska caadi ah ay yihiin soo waxa laga shakisan yahay wiilkan oo xitaa la sheegaya in uu fiirsan jiray filimaanta dilka ah iyo filimaanta waxaan ku dhahay maxal dhahay cabsida ah waxyaalahaas uu fiirsan jiray xitaa wiilka wajigiisa waa laga dareemaa midka wajigiisa oo cabsida laga dareemayo waayo midka wiilka Yusufka oo saaxiibkiisa dilay wiilkan kaleetana subxaanallah yaani ilmaha balbiri waxyaalaha ay fiirsanayaan aad ay u saameynayaan miskiinima ka muuqata wiilka kaleeto sawirka labadaba inta ay soo saaro isku dhagan yihiin laakiin qof walba wuxuu yahay wajigiisa ayaa laga dareemayaa soo waalidiinta idaawan doonaan oo fiidiyogan arki doonaan please ilmihiina ha isdhihina way weynaadeen 10 sano haday gaaraan waalidka ilmaha faraha ka qaadaan soo ilmihiina waxa ay fiirsanayaan ee filimaanta ay jecel yihiin ha laga warhaayo wiilkan waxa saameeyay oo u geystay in uu saaxiibkiisa dilo uu jarjaro oo maskaxdiisa canugan yarka ah sidaas ka dhigay shaqsi ma ahan waa filimaan iyo waxyaalo asaga uu daawado uu maxal dhahay uu xiiseeyo